السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن ونكسن داود يرمل كسرنا قد ونيسان كسو دواد وررك مانتا قد بدأ وقدر كورونا يا واحد كمد تهريد الوزراء حسن علي قيري يوم مدحوين لفت جرين أو كلن جارة كوي شيء مقالة مقدشو شر لوجه اللي أرمها قرصور كذلك أو كفر ماي مقالة مقدشو madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gurigiisa ku booqday ugaas Khaliif oo dhismihii Hirshabeelle isku qabteen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo kulan qarsoodi ah London kula yeeshay saxaafadda ka howlgala waddankaasi Ingiriiska Mareykanka oo ka hadlay duqeyn ka dhacday Shabeellaha Hoose iyo madaxweyne Trump oo jeediyay khudbadiisa sanadlaha ahayd antaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karoon u diyaar garoow ayaga fisan waa maalinimo Arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay 6 bisha 2019 kun soo dhawaada warkay ofisan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineeriso oo kulan la qaatay agaasimaha guud ee iskaashiga caalamiga ah iyo horumarinta midowga Yurub mudane Stefano ayaa sheegay in qorshaha maamulka gobolka ee sanadkan uu yahay hirgelinta mashaariic lagu horumarinayo caasimadda iyo sidii xal waara looga heli lahaa barakacayaasha dalka gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay dadaalka ay ugu jiraan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ku aadan dib u dhiska caasimadda iyo kaalin in ay ka qaataan dalalka iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera Soomaaliya Injineeriso oo ugu warbixiyay Stefano horumarka ka socda gobolka Banaadir iyo barnaamijka isxilqaan ee shacabku ay dalkooda dib ugu dhisayaan ayaa lagu wadaagayay qorshayaal horumarineed oo ay muhiim tahay in ay ka gacan siiyaan maamulka gobolka madaxweynaha koonfur galbeed oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wararka aan ka helayno madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in kulan saacado qaatay oo yeesheen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre kulankaas oo arrimo badan looga hadlayay ayaa waxa diiradda lagu saariyay siideynta Muqdar Row Abu Mansuur iyo xaaladihii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kulanka waxa sidoo kale qayb ka ahaa sanataro ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka iyo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ku weelinaya safarka uu kaga yimid magaalada Baydhabo xildhibaanada iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa iska xog wareystay xaaladda guud ee deegaanada maamulka koonfur galbeed xildhibaanada iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa iska xog wareystay xaaladda guud ee deegaanada maamulka koonfur galbeed isagoo xildhibaanada u sheegay in la joogo xilligii la midoobi lahaa waxa uu qabashada bulshada ku dhaqan koonfur galbeed ma jirto xog dheeri ah oo warbaahinta laga siiyay kulanka gaarka ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee u dhaxeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed Cirro ayaa ka hadlay xaaladda dhaqaalaha ee Somaliland iyo dhaqaalaha badan deen ahaan loo geliyay Somaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland ee hadda talada haysa aysan waxba ka qaban waxyaabaha shacabka Somaliland ka filayeen inay qabato isaga oo sheegay in Muuse Biixi oo uu ku fashilmay u adeegida dadweynaha madaxweynaha wax laga filayay iyo waxyaabaha uu dadweynuhu u ballan qaaday waa ku fashilmay arrimaha dibadda dib u heshiisiinta iyo dhaqaalaha waxba kama qaban madaxweyne ayuu yiri Cabdiraxmaan Cirro sidoo kale Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo hadal qaaday dhaqaalaha badan ee deynta ah isaga oo sheegay in lacagtaasi horey ay xog ahaan u hayeen dadweynaha Somaliland balse hadda ay banaanka timid faahfaahin ayaa ka soo baxaysa kooxo hubeysan oo bustolada wata ayaa xalay fiidkii gudaha degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen wiil dhalinyaro ah dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay inoo sheegeen in dilka uu ka dhacay xaafadda Xarar Yaale ee degmada Warta Nabadda isla markaana rag hubeysan ay toogteen wiil dhalinyaro ah oo si weyn loogu yaqaan xaafadaasi sidoo kale waxa la sheegay in ragii ka dambeeyay dilka ruuxa dhalinyarada ahaa ay goobta ka baxsadeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay iyagoo halkaasi ku qaaday
meydka ninka la dilay. Inta badan magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhaca dilal qorshaysan, waxaana dilkan xalay uu ka mid yahay dilal hore uga dhacay magaalada Muqdisho. Daayarta ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maalimihii dhowaa waxaa la soo gudbinaatay dilal qorshaysan oo inta badan loo geysanayo dhalinyarada magaca ku leh degmooyinka gobolka Banaadir. Dowladda Mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisay duqeyn dhinaca cirka ah oo ay shalay ku filisay deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warar ka soo baxay taliska Mareykanka ee Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday xarumo Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi. Africom ayaa shaacisay in duqeynta ay ku dishay xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab walow aysan shaacinin tiradooda. Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in weerarkan ay ku gacan siinayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar madaafiic ah oo Al-Shabaab xalay ku qaadeen deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Weerarkan ayaa waxa Al-Shabaab ay sheegeen in ay ku dileen ilaa iyo 6 askari oo ka tirsan ciidanka Jubbaland kuna dhaawaceen ku dhawaad 10 kale. Ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka Jubbaland oo ku aadan weerarkaasi. Wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in magaaladaasi kulan gaar ah ku yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif. Kulankaasi ayaa ka dhacay guriga ugaaska kadib markii Xasan Sheekh uu magaalada Beledweyne shalay gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankaasi oo ahaa mid gaar ah ayaa waxa Xasan Sheekh Maxamuud uu u muuqday mid uu ku dhaqangelinayay hadal shalay ka sheegay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay sheegay inuu qancin doono cid walba oo tabasho ka muujinaysa hanaankii loo maray dhismaha maamulka Hirshabelle oo muddo badan la isku hayay. Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa ka mid ahaa dadkii sida weyn uu dhaliilsanaa dhismaha maamulka Hirshabelle iyo hanaankii maamulka Xasan Sheekh Maxamuud ay u mareen. Shir sanadeedka garsoorka dalka ayaa waxaa ka socda magaalada Muqdisho kaasi oo ay ka qayb galayaan garsoorayaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Madaxda sarsare ee dalka iyo marti sharafta ka socota qaybaha kala duwan ee dalka, mas'uuliyiin oo ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cabud. Shir sanadeedka garsoorka dalka ayaa ka socda magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlayo arrimaha garsoorka dalka. Ilaalada madaxtooyada Hirshabelle ayaa maanta la wareegay xarunta baarlamaanka Hirshabelle iyagoo joojiyay kulan ay lahaayeen gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka Hirshabelle. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare inuu adeegsado awood ciidan isla markaana xildhibaanada loo diido inay gudaha u galaan xarunta. Xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa maalmihii u dambeeyay eedeymo u jeediyay madaxda Hirshabelle iyagoo ka dalbaday inuu hor yimaado si loola xisaabtamo. Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa 3 bishan dib ugu laabtay magaalada Jowhar oo muddo ka maqnaa xilli qaar ka mid ah xildhibaanada Hirshabelle ay ku eedeeyeen madaxda Hirshabelle musuqmaasuq baahsan oo iyadoo aan loo ogeyn halka ay ka bixiyaan lacagihii mushaarka xildhibaanada. Baarlamaanka Hirshabelle oo aan xasilnayn ayaa dhowr jeer oo hore mooshin isdaba joog ah ka keenay madaxweynaha maamulkaas iyadoo lagu xusuustay in madaxweynihii u horeeyay ee Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusuble Cali Guuldaawe in isagoo aan muddo sanad ah dhammaysan in xilka lagu tuuray. Sida aan ku helayna warar hoose ayaa sheegaya in kulan ka dhacay xalay maqaayad ku taal dalalka Ingiriiska ka oo ku yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo saxaafadda ka howlgasha waddanka Ingiriiska iyo qaar ka mid ah suxufiyiinta Soomaalida. Saxaafadda ka howlgalaysa shirka oo ka kala socday qaybaha kala gedisan ee sida TV-da iyo baraha bulshada, iyadoona kulanka ujeedkiisu ahaa in aan laga gudbin wararka lidka ku ah arrimaha batroolka iyo mudaharaad ka dhacay waddankaas oo lagu diidan yahay in kheyraadka dalka la soo saaro. Shirka ayaa la sheegay in saxafiyiinta ka qayb gashay la siiyo lacag xad dhaaf ah si ay u joojiyaan wararka lidka ku ah shirka batroolka looga hadlayo ee dhacayo maalinta Khamiista ah oo beri ku beegan. Shirka oo u muuqda mid lagu doonayo in la iibsado saxaafadda maadaama saxaafadda Soomaalida yihiin kuwa ku shaqeeya lacagta aan ahayn saxaafad xor ah. Dhanka kale
mudaharaad ka dhacayo magaalada London maalinta Khamiista taariikhduna ku beegantay 7 bisha 2 2019 ayaa waxaa dabada ka riixaya xisbiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo na bixinaya dhaqaalaha ka bixaya banaanbaxa isagoona shalay dhowr mar la soo xiriiray xildhibaan hore oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Runkaneed oo kamid ah qabanqaabayaasha banaanbaxaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Donald Trump ayaa waxa uu jeediyay khudbadiisii sanadlaha ahayd ee State of the Union lagu magacaabo taas oo uu kaga hadlayay xaaladda dalka iyo waxyaabihii u qabsoomay dawladdiisa muddadii ay jirtay. madaxweyne Trump ayaa khudbadiisa waxa uu si gaar ah kaga hadlay dhaqaalaha, arrimaha socdaalka, qodobka muranka badan ka taagan yahay ee derbiga laga dhisayo xuduudda Mareykanka iyo Mexico. arrinta derbiga ayaa waxaa dalkaasi Mareykanka shaqadii loogu joojiyay ilaa iyo muddo 35 maalmood ah iyadoona 3 isbuuc u qabtay madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Donald Trump oo in codsigiisa loogu fuliyo. antaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkeena maanta. intaan warkan war limid aan kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.